مثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. furashadii magaalada Camuuriya waa mid ka mid ah magaalooyinkii ugu caansanaa Aasiya Suqra. lixdii bishii Ramadaan ee sanadkii 223 Hijriyada ayay muslimiintu furteen magaalada Camuuriya. sababka keenay furashadaas ayaa ahaa inuu qabar ama war soo gaaray qaliifkii waqtigaas ee al-Mu'tasim Abu Isxaaq Muhammad al-Mu'tasim Billah ibn Harun, kaas oo tibaaxaya in 100,000 oo Saliibiyiin Roomaniyiin ah oo uu hogaaminayo boqorkii Byzantiniyiinta ee ahaa Theophil inay duulaan ku soo yihiin kuna soo qaadeen dhufayskii Sabaraad oo ahaa dhufays muslimiintu leeyihiin midka ugu dhawaa Byzantiniyiinta. waxayna ku laayeen halkaas raggii joogay ayagoo qafaashay carruurtii iyo dumarkii horeyna u sii kaxaystay xoolahoodii iyo waxay hanti lahaayeen. mid ka mid ah haweenka oo cadowgu qafaashay waxay ahayd reer Banu Haashim, taas oo u gacan gashay boqorkii Roomaanka ee Camuuriye fadhiyey. markaas ayay ku qaylisay waa Mu'tasimaah. markaas ayuu boqorkii Roomaanka ku yiri asagoo ku jeesjeesaya, uma imaan karo Mu'tasim furashadaada iyo inuu iga ka badbaadiyo ilaa uu la yimaado faras cadaan iyo madow isugu jira maahane. markaas ayuu Mu'tasim xanaaqay arrinkaasna uu aad ula weynaaday. kadibna gabadhii ku yiri labayki ku ajiibay isla markii ayuu kacay. waxa uuna ku qayliyay ciidamadiisii asagoo u sheegaya inay koraan fardo biliq ah, macnaha cadaan iyo madow isugu jira. asagana waxa uu qaatay mid lamid ah kii ciidamadiisa oo amray, wuxuuna horkacay muqadimada ciidankiisa oo gaaraya 4,000. waxayna riwaayadaha qaar sheegayaan in ciidanka duulaan tagay ay gaarayaan 200,000 oo kun, halka riwaayadaha qaarna tibaaxayaan inay gaarayaan 500,000 oo kun oo askari. waxaana ka dhex muuqday in badan oo ka mid ah hogaamiyaal sarsare oo atraag u badnaa, kuwaas oo ku caan baxay adayga sida Afshin iyo Ashnaas. waxa uu u diyaar garoobay si uusan ruuxna hortii u diyaar garoobin, hadday tahay hub iyo tayo intaba. markuu dhammaaday diyaar garowgii oo ay ciidamadii wada kulmeen in la dhaqaaqana la go'aansaday, ayuu wuxuu Mu'tasim u wacay garsoorayaashii iyo marqaatiyaal asagoo caddeeyey inuu maalkiisa 3 meelood meel u dhigay Allah dartii. dhiga kalena wuxuu siiyey wiilkiisa iyo qaraabadiisa, halka dhiga saddexaadna oo u waqfay mawaalidiisa. kadib ayuu dhaqaaqay. waxa uuna weydiiyey meesha ugu adag ee Roomaanku ku tashadaan. markaas ayaa lagu yiri oo loo sheegay inay Camuuriye tahay isha Roomaanka iyo halka ay ku xisaabtamaan. markaas ayuu u jihaystay dhankeeda, wuuna hareereeyay. waxa uuna ku garaacay dhufaysyadeeda majaaniiq ilaa ay ka dumiyaan dhufayskii oo ay ka helaan meel daloosha oo laga geli karo. isla markiina waxay ku galeen meeshii si xoog ah, iyaga oo halkaa ku dilay in ka badan 30,000 oo Roomaan Saliibi ah. waxayna qafaasheen tiradaas tiro u dhow, waxayna dumiyeen Camuuriya iyagoo soo xoreeyay gabadhii muslimadda ahayd ee gacanta ugu jirtay boqorkii Camuuriya iyo weliba kuwa kale oo ay hore u haysteen Saliibiyiintu. waxayna soo laabteen ayagoo guulaystay, jabiyana Saliibiyiintii kibirsanaa. waxay isku dayeen kuwa dadka ka reebay jihaadka inay celiyaan Mu'tasim kuna dhiirigeliyaan inuusan jihaad u bixin, ayagoo u marayay waddo kasta oo ay ku celin karaan. waxaana ka mid ahaa dadkii hawsha fariisinta ah ka qayb qaadanayay munajimiinta iyo kuwa xidigaha fiiriya, ayagoo sheegay in haddii muslimiinta mujaahidiinta ah ay baxaan ay xilligan soo jabi doonaan. balse Mu'tasim warkaa dhag jalaq uma siinin oo waxa uu go'aansaday inuu soo xoreeyo dhammaan asradii muslimiinta ee meesha ku xirnaa. waxay soo jiidatay guusha lama iloowaanka ah qalbigii shucarada, waxaana ka mid ahaa shaacirkii Abu Tamaam. wuxuuna yiri: السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. بيد الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب. أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب. تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب. عجائبا زعموا الأيام مجفلة عنهن في صفر الأصفار أو رجب. وخوفوا الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. waxa uu ku yiri qaliifkii muslimiinta: خليفة الله جاز الله سعيك عن جرثومة الدين والإسلام والحسب. بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب.
إن كان بين صروف الدهر من رحم موصولة أو ذمام غير منقضب، فبين أيامك اللاتي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب النسب. أبقت بني الأصفر الممراض كاسمهم صفر الوجوه وجلت أوجه العرب. qofkii u fiirsada qisadan iyo fatxigan aadka u weyn wuxuu ka heli karaa duruus fara badan, waxaana ka mid ah in hogaaminta dadka la hogaaminaya aysan ahayn meel lagu nasto laguna boobo hantida muslimiinta laguna raadiyo magac, balse waa meel loo huro naf iyo maal intaba, laguna cabsi geliyo cadowga, laguna soo furto maxaabiista muslimiinta, dulligana looga qaado dadka aad maamulayso, haba keento inaad ku weyso naftaada xaqiijinta arrimahaas oo idile. waxa uu Muctasim u dhaqaajiyey ciidan idil furashada gabar ka mid ah gabdhaha muslimaadka ah oo xiran cadowga, asagoo go'aansaday inuu ku duulo Roomaankii, weliba magaalooyin ka mid ah magaalooyinka ay ku dhaartaan kuna taalla gunta dhulkii ay maamulayeen. waxaana xusid mudan in Muctasim uu laf ahaantiisa ciidanka horboodayay iyadoo laga yaabo inuu naftiisa ku waayo, waana taas midda keentay inuu isugu yeero garsoorayaal iyo markhaatiyaal uuna qaybiyo hantidiisa. dhab ahaantii hogaamiyaha dhabta ah waa kan ka gilgisha munkarka iyo dulliga, isla markaana u dhaqaaqa inuu suuliyo lana dagaalamo dadka u ololeeya, mana dibdhigo xaqiijinta waxaana daliil inoogu filan in Muctasim uu yiri labayki labayki isla markii ay soo gaartay qayladhaanta gabadha muslimadda ah, mana daahin kamana dibdhicin inuu ajiibo gabadhaas. sidoo kalena ma dhagaysan kuwii doonayay inay fariisiyaan oo uu dhagaha ka furaysto baaqa gabadha ka soo yeeray. dhab ahaantii waqti kastana way joogaan kuwa caynkaas oo kale ah, qaa'id kastana wuu wajahayaa kuwa noocaas oo kale ah. allah ha u naxariisto Muctasim billaah, muslimiintana ha ku arsuqo hogaamiye la mid ah oo u hiiliya asrada muslimiinta ee sida dulmiga ah u xiran. هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أخبالا.